kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada falanqaynta arrimaha ugu waaweyn ee caalamka waqtigan ka dhacaya waxaanuna barnaamijkan kula faguri doonaa halka uu saldhigi doono khilaafka ka taagan lahaanshaha kheyraadka ku duugan bariga badda Mediterranean-ka tani markii maraakiibta dawladda Turkigu sahaminta ka bilaabeen bariga badda Mediterranean-ka ayaa waxa isla markiiba soo ifbaxay khilaafka marba marka ka sii dambeysay cirka isku sii shareerayay khilaafkaas oo soo kala dhex galay dawladaha Turkiga iyo Greega waxaana uu khilaafkan salka ku hayaa lahaanshaha kheyraadka ku duugan bariga badda Mediterranean-ka taasoo keentay in labada dalba baddaas ay u diraan maraakiibta dagaalka oo ay barbar socdeen dawladus military digniino iyo weerarafka oo warbaahinta isu marinayeen maalmihii la soo dhaafay mas'uuliyiinta labada dawladood waxaana marba marka ka sii dambeysay sii kordhaysay xiisadda labada dal taasoo marba marka ka sii dambeysay cirka isku sii shareeraysay ayaa haddana waxaa barbar socday dadaalada dhinaca diblomaasiyadda oo labada dal la isugu soo dhaweynayo si loo qaboojiyo xiisadda ka dhex xaloosan labada dal dadaaladaas oo ay garwadeen ka ahaayeen dawladda Jarmalka iyo gaashaanbuurta NATO waxayse xaaladdu sii murugtay kadib markii ay dawladda Faransiisku si toos ah ula safatay dawladda Greega taasoo keentay in weerar afka iyo hanjabaado warbaahinta isu mariyaan madaxda dawladaha Turkiga iyo Faransiisku waxayna xaaladdu sii cakirantay kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee Greegu isku dayeen inay dul maraan goobaha ay saamaynta ka wadaan maraakiibta Turkigu kuwa ay wehelinayaan raxan maraakiibta dagaalka Turkiga Dostlarımız Kartal. Şu an seviyemiz 1-5-0 hocam. Tamam hocam ben arkasındayım. mar kale ayay xaaladdu meel halisa gaadhay inay si toosa labada wadan dagaalka foolka foola isaga hor yimaadaan kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee Turkigu ka hortageen diyaaradaha dagaalka ee Greega isla markaana ay ka xidhiyeen bartilmaameedkii oo ku khasabtay inaanay diyaaradaha dagaalka ee Greegu dagaalka la hortagin diyaaradaha dagaalka ee Turkiga wixii intaa ka dambeeyay dawladda Greega oo taageero ka helaysa dawladda Faransiiska ayaa waxaa xaaladda sii cakiray kadib markii ay dawladda Faransiisku diyaaradaha casriga dagaalka ee Rafale u soo daabashay isla markaana ugu deeqday dawladda Greega iyadoo taa ciidamada dalka Turkigu ay ku qalabaysan yihiin hanaanka difaaca casriga ee S-400 iyo diyaaradaha F-16 ayaa haddana waxay dawladda Turkigu xadka dhulka ay la wadaagto dawladda Greega ku daabashay tiro badan oo taangiyadeeda dagaalka dhinaca kale haddii aan eegno suuragalnimada dagaal dhexmara Turkiga iyo Greega wadanadani uguma jirto dagaal uu kan kale la galo waa Turkiga oo ka dhaqaaleeyo xuduud weyn Greega iyo Greega oo taageero ka helaya wadamo kale waxaana taa beddelkeeda labadan dal ee NATO ka wada tirsan haatan isu diyaarinayaan xal diblomaasiyadeed iyo wada hadal ay garwadeen ka tahay gaashaanbuurta NATO ayaa la filayaa maalmaha soo socda inay si toos ah miiska wada hadalka ku soo fadhiistaan saraakiilka kala socda labadan dawladood waa Turkiga iyo Greega